inuu faraati diamond ku gado oo $15,000 jooga inuu ku siiyo $20,000 oo kaasha kadibna aad inka boorkeedaa soo dacweeyay maxkamadda yimid wuxuu kugu soo dacweeyay in xiriir jacayl ka dhaxeeyay inaad kulanteen inuu faraati diamond ku gado oo $15,000 jooga inuu ku siiyo $20,000 oo kaasha kadibna aad ku balanteen inaad isguursataan January bishaan laakiin markii aad ka soo laabatay wixii ka dambeeyay aad bloogtay telefoonkana ka xiratay wax jawaabana uu ka waayay uuna maqlay inaad Afrika joogto maxaa ku jawaabaysaa waxa aad qabto hadda anagoo ku maqlayn markale ku celisowsan aniga aan u qaldamin inta siida hadlin aan qalad u samayn waxa aad qabto ka soo bax moorkeena muudka ayadoo ku maqlayso ku hadal bano daahiro horta meeshaan inaad lacagnu muhiimadu ma ahan walaal lacag maalin walba naga baxdaa muhiimadu waa gabadhan aan meesha ugu wacayno waxay ahayd inaad maadaama ballan aan lahayn ballantina ay ka baxday wixiina ay ogtahay intuu ku baxday iyada ay ka warqabtay maxaa kilifay taleefankaasi waxaan rabaa dhegeyso moorkeena mar raba madax dirbidhac markaad ila hadlayso miyugu tiri $20,000 waa sii kaasha ina 20,000 oo Franti Diamond ma baqarsoonade intaasna waa siis maxaa ku balanteen inaad January inay imaado bishaan hadda la taagan yahay ay Mareykanka ugu timaado Mareykan imaado oo isguursataan gabadhina waa taasaabade blog iyo maaqaan ii dirtay ilaa hadda ma ana garan laahay waxa ay ku kalifay heerka inay gaarto ina ogaadaan hadda ka jawaabaysaa markaa maqlaa okay waa sheekeysanaynay wuxuu sheegay okay everything drone waaye laakiin aniga gabar ay soo wacday ma fahantay kor dumarna kaba isma dheeraa la dhahaa ma fahantay aniga markaa la wada isla hadlaynay oo u sheegay saaxiib waxa ku dhahay aniga naag iyo ani meel islama galno ma fahantay so haddii aad naagaha ka soo dhamaatay yes waa samaysan karnaa xiriir waa wada sheekaysan karnaa waa isguursan karnaa waxaasoo dhan okay waa ma fahant laakiin haddaan naag iyo macii iska dabuureeg iyo ani ma geli kari wuxuu dhahay waxaas dhan ma jiraan okay isku ogeen sooma gabar meeshaana waxay isoo dirtay masajo iyadoo ooynaysa soo wacday waxay ku tiri wiilkaas ma taqaanaa haa maxaa idinka dhexeeya waa isla soconaa ma isla socotiin haa walaalay waa la ii sheegay dadaa ii sheegay inaa isla socotiin maxaa la dhahaa intaasaan isla soconay sanadii gogo aan isla soconay oo samarkii hadda aaba rabnay inaa isguursanay kabacdina wejigu ii bedela caban asigoo kusoo noqday waa weydiye waxaan ku dhahay naag maa jirto maya yani waxaan dareemay inuu iquursaday gebigiiba meel walbaan ka balogana marka wax kale oo dhibo ma jiro intaa waa sheekadin iska soo bax marka moorka yar daahiro horta inaad radayno waa caddeey arrinta war anigu tiktok intaasaa joogay xataa gabar dhihi karto luuqaygu ku jiraa walaal ma jirto luuqaygana qof walba ma soo galo inaa adeer oo kalsoonida inta kusoo koraan qabaa marka taasi anigu ma garan karo meel ay kala imaaday walaashay dee dumar waa iska kee sheegan karaan dee waa laga yaabaa ninkaan tiktok joogaan ahay maybe inay dhahaan hebel ayaa wax igala dhexeeyaa maadaama iyada ay ka maqleena laga yaabaa waa dhici kartaa laakiin way igala dhexeeyaan keliya ma ahayn sheekada saaxiib oo gabadhan way ii dhaaratay ma fahantay marka adiga meesha oo la rabay inaa maadaama naag oo ninkaan u tagto January rabo waa maseertay adaa maseertayba oo bood maya balantaan galnayna waxaan dareemay inuu ka baxay okay adiga hadda ma lagu qabaa su'aashaas ka jawaab adoo hadda ma nin kala guursatay ka jawaab su'aashaas nin ma guursan ninna ma arkin ninna lama sheekaysto ninna shaqo iskuma lihin waa maqlaysaa moorkeena soo ma waa maqlayaa inaad waxaan kuu sheego gabadhan aniga gabadhaydu waaye maaha xitaa naagaha oo meelaha ka raadinaysa maaha hadday saa tahay arrintiinu aniga adiga bareefad aan u dhammeeyo aniga iyo adiga aan ka wada hadalla diyaar ma u tahay bareefada ha okay waaye walaal bareefada kusoo gabagabaysa mise go'aan kalaa wadataa maya anigu go'aan ma wateen adeer muhiimaddu waxay ahayd inaa arrintaa ogaado the reason koosgaraynaya laakiin haddayba reasonka hadda ii sheegtay inaadeer go'aan kale hadda ma biyaalaba okay
haddii uu qalas kaa galana waxaan ku ballan qaadaa marka midda kale another thing noo kuu sheegi karaa ma fahante like lacagtana account-kaaga isoo dir beriya kuusoo dhiga ma fahante anything ani dhinacayga ku tabaysid saaxiib isoo dirso waa kuusoo shiba an naag lacag way sameeyihii naag inta daaqad lasoo istaajiye la dhaho lacagaa ku leeyahay iyo lacaga iga qaadatay iyo lacaga iga cuntana miihi ma fahante hadda intaa iga goynaysidaaba ka badanba ma fahante lacagtaa sheegaysid anaa soo dhigaaye maya saas ma wixii lacaga ani asaa ka wada hadlayno haddaa lacag u baahanta gabadhaas ay lacag kugu leedahay lacagtaada ani teem aniga waa haddii laakiin xiriirkiina sii soconayo oo aan maslaxadin dhex gelaayo anaa ida ka adag wixii ay kaaga qaldanta kaaga qabanayo waxay u eg tahay inay ka booddo naag kale ma fahamta daahiro midaan hadda kuu sheegaya saaxib maadaama ay gabadhan already go-aan qaadatay soo go-aan may qaadan oo dee shaki iyo wax soo ma imaan inaa adeer gabadhaasi lacag hadda muhiimad maahan anigu maalin walba lacag iga baxdaa lacagtuna cafisa iga tahay iyadana nolosheeda hore u raacato wixii hadda ka dambeeya marka uga hadasha xiriirkiina ka hadashida ahayd waay lacag uga hadasha marka haddee lacagta problem kugu ahayn maadaama xiriirkeennaba hadda aad dhahday halahaasaan ku burburiye oo naag soo wacday dee inaad tomorrowna intaan ka badan waa dhici doontaa in maalin waxaa dhici doonta soo wacay maku weydiiye inta ku soo wacay maku weydiiye inaad waa kaa qanciyo waxaa ku dhax waxba ma jiraan oo kuu sheegaba hadda markaas inaad sheegtay arrintaas aniga soo wacdo marka daahirow haddana inaa adeer gabadhan xore u tahay ninkay doonta iskuhansan kartaa wixii maanta ka dambeeyo anigana dee nolosheeda kalaa iska raacana dhibaatana uma arko saaxib marka ani waxaan qabaa aniga ad inaan wada hadalno intaada go-aan qaadan maadaama aniga aad ii timid waxaan qabaa inaad aniga abtuu ah anaa gabadha adigaa soomay arkin anagaa soo korsannay aniga igu soo hoos kortay inaad aniga isku soo laabanno aniga adi aan wada hadalnaan qabaa anu ma raba gabar ehnaa raacisa ma rabo waxaan rabaa sida ugu fiican ee habi a ku tahay maadaama dad soo wada ceesh tihiin dad isbarta a tihiin ma rabo in oo iga raacdo oo gabadhaas afka ama carab uu raaca ma rabo ma fahamta lacagtana wax burbareema oo stress ay kugu haysmana walaahi oo bilow tala anaa personal kuusoo shubay wax daahiro anigu lacagta muhiimad agteeda kama walahanba soo moogid ilaa hadda idinku waxaa ka sheekeynaysaan lacagtu inaad muhiimad maahan maalin walba inaan lacag suubinaa maalin walba jeclahay runta haddaan ku sheego inaan masaaliixdiina ka shaqeeyo oo sida wanaagsan xiriir ku lahaydeen aan soo celiyo oo labadiinaba aan wax idin kala dhaho oo mataqaanaa maadaama gabadha dani gacanteeda ku jirto waxaan rabaa inaan si fiican kula macaamilo si xun kula macaamilo ma rabo dadku marka soo canfirsiya soomaalida salaam baa lagugu baabi'inayaa iska waran 5 sannadood baan ku raadinay 5 sano anima joogin 5 sano TikTok wanda waxa beenta loogu sheegay daahiro mi maqashaa arinta arrinka weyn baa taabatee mi maqashaa no gabadha madax burada kaga talmaa soo qabata saaxib ma soo qabanayo sababtoo been buu ii sheegay maya gabadha ha imaata iyada maya been buu ii sheegay ma arrin kaloo been ku sheegay marka hore been buu ii sheegay kuwa ku qaraabanaya jirin ku qaraabanaya baa jirta saasaan waaye anigiibu salaamu calaykum هيا هذا ماشي أنا تقف دم رايق لها شيء أظن إنها تايم حدا أو قبل إلى هذا الشيء هي محاوبة أنا ذرو بح باستري يوم كان بح laakiin caawa rag unbaa soo jabay caawa rag unbaa qolku luuqa kugu jira daar calasho waxaan dumarbu kuma arkay war faaraxyaashii ma jabeen nacalaa binku almaa shaqaysataan oo dhagaxaanta jibisaan dalka shaqa la'aan baa taala umaleynaa wallah war dhagaxaantay buuraa kasoo jibin karaan waxaan tuugsiga barteen dalka shaqa la'aan baa taala wallah bee waxba ma ogide umad ilaahay ha u gargaar Soomaali ilaahayna dhaafi waaga hore Facebook xataa dhacdhac baa laga heli jiray mucaaradku waxbay heli